sida ari dayacan weera galay daacista u laaya daribta iyo baruurtooda shilista cawada u looga shisheeyaha damaaciga xun wada yuu ifkaba daaqi dugaaggaana cunay kuma imaan duulan iyo xooge dusha calamiskaad waxa ku furay dib isku weydii bismillaahi raxmaani raxiim waa abwaan cabdullaahi cabdi faadhigo iyo tixdii calmiskood oo difaaca Puntland tanbay noqotay dooxada Puntland inaan difaacdaa weeye waxayna oranaysaa sida tixdaani ayaamahan dadkaygow ma tirin deelka maansada oo suugaanta inaan daayay bay doqontu moodaaya ha yeeshee waxaan uga dib dhacay waa dahsoon tahay ee durduraan go-ayn baan ahay iyo diiqaliyo kale ee qarannimadu goortay duntay ee la isku dacareeyey goortaan isdooxnay ee bulshada daqarku saameeyey dihaalka gaajadu markuu dubayay jiirkeenna duruufaha shallaytida markaan wada jirkii doonay dib u curashadii baa naxligu nooga soo degayay wax kastoo daraansha ah waxbaa kaaga sii daranee xasan bay u doorteen hankaan daadahan jiray xamsana waxaa dalaal looga dhigay magaca daarood qaran aan dugsado iyo markaan dowladnimo waayey danbay noqotay dooxada Puntland inaan difaacdaaye haddaan shalay siciid diriirsanayn waa la duubnaa dadka reer Puntland oo dhacdadu igama daahnayn dubaaqiisa kuma wiirsan karo daaci magac weyn deeqdaan mulkiyey iyo murtida daararka ii jiifta doorkan lahaa iyo xigmadan lama dalaabeen daleelna ugama tegin waajib iyo doorka aan galo damiirka iyo qabkaygii ma dhiman diranaan jiray cabsina ugama daansoon xaq aan dow u leeyahay runta daahan waa inay khalqiga wadar u deeqdaaye dalagabay dabuub iyo tix iyo xaajadani keentay oo caarif waayuhu dabreen diirka ka caddeeyey oo hadalka lama daaliyee duugga hari doonta la dalaabay waayuhu siduu ii dalleensaday dareendheerihii caaqilka hadalku deeqaaye duca qabe siciid baan lahaa ducuga sheekeeya waa aragti diimoon xogtan ku dulmarayaayo walaalow dushay iiga taal diifta aan qabo oo anigiyo duryaadkan dhalay bay daran yahaysaa haddaan bari dildila aar lahaa dacawo laymoodiyo dayax sidii haddaan nuuri jiray haatan doorsamay waxa dararta faadhiga xallilay waa duruuf timide anoo dalagsan baan luudayaa dalal shisheeyaad waxbana laguma daalo oo xarfaha waa dabrahayaaye onkodkii dawaaraynayaba duluucdu waa meele daliilkan ku dhaartiiyo sharciga dacaaladiisii iyo dariiq wow lahaydeen inaan madaxa daalshaayay haddiise aan docdaydii gabay iyo weedha duumisteeda cafis baan dalbaday iyo inaan daynta bixiyaay dad israacsan shacab diiran iyo madax dadaalaysa dumarka iyo raggiinna iyo xitaa culimadii diinta isku duubnidiinniyo qabkaa door ku noqoteen danab iyo gallayr iyo hilaac amase duufaanba daraawiishta iyo booliska iyo daafic iyo xoogga dable dhiiran alifla aan dib dhicin xarig la door qaatay isbatoore diin iyo dal iyo dad u shaqaynaya xidigliya labaalaha ku filan dooyad iyo weedha kabtaan daaragtara iyo kornayl miciida deelaystay iyo janamo kaartada deja oo daaciflaha aara kuwa maanta loogu diirsaday oo cadowga daaneeyey geesiga naftiisa u daldalay duugga noloshiina darajo iyo biladowow qalmaan doorarkii tagay doorarkii baxay darajo iyo biladowow qalmaan doorarkii baxay daafaha dhulkeenniya haddaanan dunida gaarsiinin amase aanan xaqiinii dadnaadiirka ka caddaynin dalaal iyo malaal kama duwani dayn xun kaa gala ee kiinii la dilo waa inaad darar ka qaadaan sida ari dayacan weera galay daacista u laaya daribta iyo baruurtooda shilista cawada u looga shisheeyaha damaaciga xun wada yuu ifkaba daaqi dalluun iyo ninkii bohol galaba geysku ha u daato dukun daakun jeeray noqdaan jiifka wada diida bulshadana waxaad uga digtaan damaca shaydaanka diintiiyo dadkeenniyo dalkiiyo dunyadiiyo maalka docda eebba nagu beeray iyo dhuliya deegaanka daliilkiiyo kitaabkaana faray inaan difaacnaaye jinsigaaga lama duudsiiyo iyo duniya liishiiya adinkoo duq ubadkiisa oo dayr ka wada foofay oo warasadii doombiro iyo ubadkii daarooda adinkoo
alliya xaqa ku doodaya adinkoo duruustii bartiyo aayadaha diinta ummad yahay dallada waajibkiiyo faralka daaweystay adinkoo dantiina u socda iyo duuga noloshiina dulli lama ajiibo iyo kufrigu waxay dalbayaane dadka reer Puntland oo hal baan idin dareensiine shan halow dabuubtaydu tahay dib isku weydiiya ummad waliba waxay doorataa daayin mudayaaye diidkiina niman loo waxshiga doonayaa jiraae dugaaggaana cunay kuma imaan duulan iyo xooge dusha calamiskaad waxa ku furay dib isku weydii Soomaalidu dunuubtay gashay baa loogu dowgalaye digta qarxu waa shalay xaqay doodsinahayeen nafsigii dawaaraynaya maanta soo degay haddaan hadalka deeqsiin lahaa dayiba maayaane dawankooda dhagahan maqlayn dooda aan iliyo durdurniciyo waxay fuqsadeen muriya deebaaqe dawarsadaha aniga dhul kale damacu gaarsiiyey dambiile iyo ninkii keenay baa nooga sii darane inaan daalinkii wali la qaban dib isku weydii badda dayran xoolaa ku jira dunidu goobta dawladda shisheeyaa la tagay degantidiinii damiska iyo shiriidkii la guray dahabigaha daribta iyo nabcada aad hesheen duul kala dhacay maalka dayacan iyo hantida dayiba maysaane daleeshu shisheeyuhu ka helay dib isku weydii nasab lagu dureeraa jira iyo duniya liileer khaatumada dirirtiiyo ku timid duubnidiiyo xoogga iyo maakhirkaa diidano qaarbadda calshoogo doodaas hartigu waxay rabtaa dib u heshiisiina dawadooda inaad raadisaan dib isku weydii Soomaalida dirkeedaan lahaa daris walaaleey awal bay dalaan aan waxgeyn darajo siiyeen hawiye iyo daaroodka waa la isku dirayay dagoodiyo dir iyo miriflahan wada jir diidayne Soomaalidu waxay doonayaan dib u heshiisiin qarannimo si loo dooni karo dib isku weydii. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.